وسلامتين bulshooyinka Soomaaliyeed meel walba caalamka ka joogtaan magacayga waa Cabdi Yuusuf Cabdi waxaan sameynayaa daraasad cilmi baaris oo aan ugu talagalay inay ka jawaabto su'aalaha mashruuciga cilmi baarista oo dhameystirka shahaadada masterka magaca mashruuca cilmi baarista waa daah ka qaadida sababaha dagaalada sokeeye iyo isbedelka cimilada Soomaaliya oo su'aasha cilmi baarista ay tahay miyay xaqiraada cadaaladda deegaanka ee dadka dhaladka Soomaalida ah sabab u noqon kartaa masiibooyinka Soomaaliya waxaan kugu casuumayaa inaad ka qayb qaadataan mashruucan cilmi baarista adiga oo ugu jawaabayo su'aalaha daraasadda faalooyin ama comments oo afkaarahaaga ah ujeedada cilmi baaristan waa daah ka qaadida sababaha dagaalada sokeeye iyo isbedelka cimilada su'aasheeda cilmi baarista waa miyay xaqiraada cadaaladda deegaanka ee dadka dhaladka Soomaalida ah sabab u noqon kartaa masiibooyinka Soomaaliya diiradeyda ayaa ah xiriirka u dhaxeeyo cadaalad darrada deegaanka iyo isbedelka cimilada oo ay ku jiraan su'aalaha ula dhaqanka sinaanta cadaaladda bulshada xuquuqda aadanaha raasumaalka ruuxa diinta siyaasadda iyo cadaaladda dhaqaalaha heebsooca iyo taariikhda takooridda bulshooyinka Soomaaliyeed iyo sida deegaanka iyo noolaha loo daryeelo ama loo dayaco tusaale ahaan arimaha xaalufinta geedaha iyo baabaa xayawaanada miyay cawaaqibta cadaalad darrada u hogaamisay Soomaaliya burbur dadka yoolkeyga ah ayaa ah bulshooyinka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan dadka loo yaqaan minority ama dadka dhaladka Soomaalida ah oo ku nool daafaha dunida ka qayb qaatayaasha yoolkeyga ah waa dadka dhaladka Soomaalida oo ay ugu horeeyaan bulshooyinka Soomaali Bantu Jareerweyne Gabooye Madhibaan Banaadiri Baajuuni Baraawe iyo Soomaalida kale guud ahaan oo ay ka mid yihiin aqoon-yahanada culimada odayaasha hogaamiyaasha macallimiinta wakiilada dumarka wakiilada dhalinyarada iyo hay'adaha bulshada iyo hay'adaha aan dawliga ahayn iyo siyaasiyiinta guud ahaan cilmi baaraha daraasadan waa Cabdi Yuusuf Cabdi oo aniga ah emailkeygana waa kaas daraasadan waxa kormeeraya Dr. James Willis ee jaamacadda Roehampton London oo agaasimaha barnaamijka ah asagana emailkiisa waa kaas fadlan ka qayb qaado daraasadan oo wixii fikradahaada ah comment ahaan uga bixi waadna ku mahadsantahay waqtigaaga thank you